SSC qaatimo laba mid baa laga rabaa hadalkoodii ahaa waa wada tashanaynaa iyo inay cadeeyaan waa tashanay idinkuna tashada waxba gidaar laga hadlo macna sameynayso qof walba wixii uu ka geystay laascaanood ubadka yaryar baa og Somaliland dad iyo degaan aan darisnahay waxaan rabnaa darisnimo inaan kula noolaano waxaan rabnaa walaalnimo inaan kula noolaano way salaamaya dhammaan meel kasta joogtaan dhageystayaal halkani waa Cabbaas Madani muuqaalkan isgaarsiiya oo dhammaan dadku dhan wada gaarsiiya waxaan ka hadli doonaa hadalka ka soo yeeray Saciid Cabdullaahi Dani ee ku aadan arrinta SSC qaatumo iyo inuu maanta si cad u cadeystay inuu la shaqeeyo jabhadda khawaarijta argagaxisada ee sanad hadalka dowlad goboleedka SSC qaatumo ka yiri mana sheegashada iyo inuu soo wada baxay labadaa isoo ka xumbeynaya inuu soo wada baxo waa rajeynayay waana filayay waana dhacday hadallo wiilal yaryar Puntland Fairs meelaha ka yiraahdaan oo isagu oday u yahayna in badan baan warwareegay arrinta mana sheegashada caawise qalbadan jabin doona caawa wax walban halkan caaw kaga waaraysan insha Allah taala isgaarsiiya muuqaalkan like saara haddii nagu cusubtaan nagu soo biiro followday like tay subscribe ko xagaaga dhagaha iyo fura dhagaha wanaagsi runta iyo xaqiiqada ayaa aniga la igu yimaada Dani magaciisa afgarashada xareekiyaan waxa la yiraahdaa mulaaxo waa daawateen oo waa dhageysateen dadka qaar baa maalmaha waxay ka filanayeen munaasabadan waa la filayay inuu qaatumo u hambaliyeenayo inuu hadii la kuurayay ustaad raacinayo laakiin ilaahay fadligii inuu soo wada baxo oo bareerihiisa cadeysto aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa maanta hadalka Dani ka soo yeeray horta marka koowaad mulaaxo jiingad baa ku duntay hadalka dhibayay xanuunka iyo cuqdada iyo nerfiska ku dhacay guusha ay gaareen reer SSC qaatumo waxa weeye muddo badan la lahaa wardaniyo warkaale laascaanood warkaale dalkaagii deegaankaagii war laba maamulo daris aanu kala noqono intaaba dhagu ka furaystay isagoo ka dhigayay wax yar oo iska misqaala daratiyo oo aan guur gaari karino oo aan iskayn karino oo aan tashan karino oo waxa weeye wax la yiraahdo Great Puntland iyo riwaayada walaahowda laakiin wuxuu dhuusan moodayay ay xaar ku noqday waa taas weeye neeftuurnimada uu neeftuurayay iyo hadallada uu ka hadlay dhowr qodob baan kala qaadaynaa marka koowaad madaxweynaha dowlad goboleedka SSC qaatumo Cabdiqaadir Axmed Aw Cali cado fadhiye caawa charchar buu fadhiyaa Soomaali Maxamed oo dhaba marxaati ka harti baa marxaati ka daarood baa marxaati ka waxa weeye reer Puntland iyo reer SSC qaatumo marxaati ka maanta inuu charchar u jiifo oo isagu maanta garta leeyahay waligiina aanu ka shaqeyn dibdaabiye Puntland Danina in badan fagaarayaasha kaga hadlay bada sare ee ugu dambeeyay madaxweyne cado fadhiye casuumad buu diray Puntland waa walaalahay bulha waxa weeye laba maamul baanu karana daris wanaag ma naga dhaxay waxa weeye adigu wax kasta oo wanaagsan oo qof bilaaadana loo rajeeyo ayuu reer Puntland u rajeeyay iyo systemka nidaamka Puntland ee dadabkeeda oo haya labadaas sano wanaag iyo sharaf iyo karaama xagga qaatumo ka socotay dhinaca siyaasadda Dani iyo team mulaaxo diindaabi ka shaqeynayay kala qeymin bulsho ka shaqeynayay kala irdeen umada reer SSC qaatumo ka shaqeynayay negative waxaan ahayn oo ay ku hawlanaayeen ma yisin jirin dadka reer SSC qaatumo oo hadda aad moodiba waxa weeye inay bahasha siyaasadda fahmeen oo xidigooduna meel sare u marayo wanaag iyo sharaf ayay ugu abaalgudayeen xumaan kasto Puntland kaga iimaanaysa Dani inta boo ka dhaga ka fariistay waa diiday hada fiiri waa diiday halka ma ka maraso maanta wuxuu ku hadaaqay wuxuu yiri alalaasaha ka socda SSC qaatumo loogu durmaantubayo dowladda Soomaaliya aan ku weydiiyay Daniyow haddii baan taada ku raaco alalaasaha eeg waxbaan ku helay oo bedelkeed waxbaan dhaafsanay wixii aan dhaafsanayna Soomaaliya waxay ku maamulada sadar muuqda su'aal ka dhan annaga waaba garanayna dowlad goboleedkayga banaanka saar dhigay dowladdu waa ku dhawaaqday doorashada waa qabanana annaga iyo dowladda federaalka Soomaaliya waxbaan is dhaafsanay hadda fiiri adigu alalaasaha Xasan madaxweynaha uga dhigtay ee farmaajo daarooda aad kula dirtay maxaa dhaafsatay reer wasaare ma jiro madaxweyne ma jiro mashaariic ma jiro xiriirkii dowladda idinka ma jiro maxaa dhaafsatay maxamed waxa weeye
inyo dhaafsatay inyo haddii cidi haleeleyso iyo durbaan tutay adiga tiimkaagaa tumay xasan baana u tunteen hala ka caban xasan arrinta aan kala tashano ama aan isku tashano ama aan kala tashano ama nin walba gooni hortee annagu dowlad gaarana 6 February go-aankaygii halkiibuu taaganaa cidda leexleexatay ee isbabadashay adiga wey afkaaga laga hayaa khaatuma waa maamul aanu darisnahay afkaaga laga hayaa waxay ku tashteen baan waxa weeye ku ixtiraamanaa afkaaga laga hayaa dadkaas wasiirkooda xor bay u yihiin waxay ku tashadeen baan kula shaqeynaa maantana waxaad ku hadlaysaa sidii naag caado heshay oo haddii la kuriyay marba joogi ku jirta sifooyinka dumarka waxa lagu yaqaanaa marka ay dhiigga caadada helaanba qoftii aad taqaaneen ma xaalad kale gashaaba marka mulaaxo halkii weeye shalayna kelmadu ku lahaa maantana kelmadu ku lahaa annaga 6 February ilaa iyo today maamul shacab garaado waxaanu lahayn oo ku hadaaqanay Puntland laba maamul oo walaalaha oo darisana halkii baanu taagana cidda kala hadlaysa cidda isbadbedelaysa ee waxa weeye neeftuuraysa sidariyo waadiga weeye arinta hiilka daba soo imaanaya arinta hiilka waa ugu celiyay hiil baanu galay ciyaalada Puntland Fires ma jawaabi jirino qalbada ma jabin jirino waxaan eegay fursadda caawa kalena caawa la sugayay laakiin caawa ka jawaabaya ninka hadalka u soo dhiibay ee yiraahdo waxbaan xoreynay abaal baanu galay waa isaga weeye atiin mulaaxa weeye hadaba Puntland haddaanan anagu jiri lahayn dhulbahanta especially wallaahi billaahi tulaha naasaha la dheereen la naasaha 7 sano Puntland jirta cidda u dhimanaysay ee futadooda difaacisay anaga weeye siyaasiyiinta yeelidka Puntland way qarsan yihiin kasoo bilow gaalkacyo dagaalkii 1993 ee ka dhacay gaalkacyo qaybtii aanu ka qaadanay waa la ogaa inta wiil ee dhulbahanta ku dhimatay waa la garanaya Puntland asaaskeedii qiimaha aanu ku bixino waad garanaysaan ilaa gaalkacyo suujiga garamaan waxa weeye hadii la ku royahay almiskaad oo maanta ugu dambaysa oo dagaal ka socdo dhulkaygii oo intaas oo furimood aan ku jirno ilaa Ceerigaabo ilaa iyo Shangeed ilaa Qorlugud ilaa Buqdarkeen ilaa Salinta intaasba difaac kaga jirno baa ragga dhulbahante ay ku dhimanayaan almiskaad dhimashadooda 47 ay maraysa Cabdillaahi Yuusuf baan ogeyn oo Puntland madaxweyne ka soo noqday xamar inuu tago oo madaxweyne Soomaaliyeed ka noqdo 6,000 oo wiil dhulbahanta baan waxa weeye hadii la kuriyay difaacday oo dhimatay waxa ugu qaalaysan in qof kula garab istaagana waa naf weey inta ay Puntland jirtay haddaan dhulbahanta jiri lahayn wallaahi billaahi tullaahi galmudug burtula imaan lahayd wallahi burtula imaan lahayd intaasoo abaalayada jirto xeerka raggaan naqaanaa weli ma aragtay qof dhulbahanta oo mana sheeganaya haddii la kuriyo Puntland oo intaas wiil baa naga dhimatay mid maxaa u dambeeyay kaale sii sido 47 nin dhulbahanta ku dhintay caalamiskaad geeridooda dhimashadooda waa la qariyaa kama aanun hadlin mana jeclaan ka waxa soo dhayo la soo maray weli mana sheegan 10,000 oo wiil baan ku weynay Puntland ay maanta dowlad noqoto hore anoo mana sheeganay ma la arkay hadda koor baa la yiri xoolo dumar baa la xoolo dumar waraaba ka dhaartay islaamba waxa la yiri xoolay lahayd kadib waraaba neef ka cunay waraabihi markuu neef ka cunay islaantii meel walba waxay marisay waraaba neefiga cunay waraabiga markaa maqlay markaas wuxuu yiri waa ka dhaartay xoolo dumar waxaan tusaalaha usoo qaatay war hal maalin baa dagaalkaasi ay soo galeen oo anagu waan ogeyn 22 bari baa dhulbahanta kaliya dagaalamayay isaaq iyo waxa weeye huwantoodii ay dhaqaajin kar waayeen halka maalin wixii naga raacay waa u jeednaa wata ilaa hadda waan haysataa 772 nin baa ku dhintay dagaalkii waxa weeye Goojacde 700 dhulbahantay haayeen 72na waxay haayeen harti bal percentage-ka u qeybi Ilaahay baa idin ku dhaashay nin 700 ka dhimatay baa ninkii ay ka dhimatay ama dhowr 20 ka nin maalin walba meel buu ku qoray waa ku xoreeyay waa ninkii 700 ay ka dhimatay maanta la jooga Soomaa tiidaha ayaa jooga war ma cid aan aniga ahayn ba tiidaha joogta war imisa dagaal ba ka dambeeyay Goojacde afarta dagaal ba ka dambeeyay oo ka dhacay Buqdarkeen oo ka dhacay waxa weeye Shangeed oo ka dhacay Ceerigaabo
yaa itaraxay haddiiba ay aaminsan yihiin puntland virus iyo tim dani haddaydan idinku waxaway la jirin reer ss qaato ama isbiga hadda dagaalka annaga ku jirna ninka aaminsan reer ss qaato gaar usuma taagi karaan war hadda yaa naga hortaagan iidoor iyo huwantoodu yaa naga hortaagan hadda annaga soo annagu dharbaaxa kumaana dhufan soo annagu aakhira kamaana xidhin yaa hadda na hortaagan yaa naga hortaagan ninka aaminsan la-aanta iyada wax ma noqon kartaan hadda fiiri aaminsan wariyaa hadda isaga iga hortaagan aniga 40 dagaal ku dhow baa dhacay inta magaalooyin inta goobadan kasoo sheekeeyay waxaan leeyahay haddaba dani waa biddana si kasta haddii saamuun loogu dhogo lama dhaqi karo abaal haddii cid loo galay annagaa isaga abaal u galay 2022gii markuu xamar kusoo hongoobay ee uu farmaajo daaradoo la diriray ee uu wasakhoobay